بسم الله الحمد لله maanta ay taariikhdu tahay 28 bisha January 2021 waxa magaalada Baydhabo soo gaaray wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee AMISOM SRCC mudane Simon Malungu wafdigaasoo runtii kulan la qaatay madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed iyo gudoomiyaha baarlamaanka ambassador Ali Saciid Fiqi runaantii mas'uuliyiinta waxay ka wada hadleen arimaha khuseeya amniga wafuudi ka socotay AMISOM oo runtii madaxda Koonfur Galbeed wax badan ay kala hadleen dhanka iyo sidii loo sugi lahaa amniga doorashooyinka waxaan ognahay wadanka wuxuu galayaa arimo doorasho marka madaxdii AMISOM ka socotay oo ugu horeeyay Master Simon iyo wafuudi kale la socotay iyo madaxda Koonfur Galbeed waxay in badan ka wada hadleen ciidanka booliska AMISOM ee ku sugan Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo sidii loo howlgelin lahaa sidii wada shaqayn dhab ah ay u yeelan lahaayeen ciidanka booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya haddii aan lahayd ka wada shaqaynta dhanka amniga tababarada iyo dhan walbaba kulankana wuxuu ahaa runtii kulan inta badan dirid lagu saarayay ciidanka booliska AMISOM siday wada shaqayn dhab ah ay ula yeelan lahaayeen ciidanka booliska Koonfur Galbeed iyo khibradooda aqooneed siday wax badan runtii uga faa'iideyn lahaayeen oo runtii ku saabsan dhanka iyo doorashooyinka sugidda amniga doorashooyinka iyo wada shaqaynta baa laga wada hadlay runtii si fiican ayuu ku soo ilaaday madaxdii ka qayb gashay kulanka oo ugu horeeyay Mr Simon iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis iyo mudane afayeenka baarlamaanka Ali Saciid Fiqi dhamaantood waxay isku afgarteen inay muhiim tahay in la howlgeliyo ciidanka AMISOM booliska ka jooga magaalada Baydhabo sida ugu dhaqsiyaha badan wada shaqayn dhab ah oo la yeeshaan ciidanka booliska Koonfur Galbeed iyo sidii ay wada sugi lahaayeen amniga guud ahaan doorashooyinka wadanka waxa la socotiin dhawaan wuxuu u talaabsanayaa dhanka iyo doorashooyinka marka waxa waajib ah in la iska kaashado dhanka iyo doorashooyinka ciidamada AMISOM ogtiin runtii lafdhabar u ah ciidankeeni qaranka Soomaaliya gaar ahaan Koonfur Galbeed runtii oo wax badan ka caawina haddii aan leeyahay dhanka booliska dhanka daraawiishta militariga dhan walba runtii wada shaqayn dhab ah kala dhaxaysa sidii arimaha loo dardargelin lahaa inkastoo kulankani uga duwanaa kulamadii hore oo si gooni ah diirada loogu saaray dhanka booliska runtii sugidda amniga doorashooyinka iyo guud ahaan magaalooyinka ay ka horgalaan iyo khibradda runtii ciidanka AMISOM ay kaga aqoon badan yihiin ciidanka booliska Soomaaliya sidii wax badan uga faa'iideyn lahayn kulanku wuxuu ahaa kulan aad iyo aad wax badan loogu